waxaan wanaagsan daawadayaashayda sharafta qadarinta iyo qiimaha naga mudan oo meel kasto dacallada dunida nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka gudihiisa iyo dibadda aanu idinka haynay warkana waxa idin la socodsiin doona anigoo Jamaal Axmed Naasira xisbiga kulmiye ayaa magaalada Berbera ka furay xafiisyo cusub oo xisbigu halkaasi ku yeelanayo sidoo warkan inoogu soo diray wariyahayaga nooga soo warama gobolka saaxil magaalada madaxdiisa Berbera Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamed مسؤولينta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera ayaa maanta kormeer ku soo maray deegaanada Laalays iyo sidoo kale deegaanka Biyooley iyo deegaanka Tuulo Dhibijo iyagoo halkaasina si weyn u soo dhaweeyay dadka ku dhaqan deegaanadaasi mas'uuliyiinta ayaa waxay dadkaasi ay kala hadleen munaasabado waaweyn oo ay ku soo dhaweynayeen dadka ku dhaqan deegaankaasi isla halkaasina la isku xog wareysanayay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka dadka madax dhaqameedka salaadiinta iyo sidoo kale haybtulayaasha deegaanadaasi ay mas'uuliyiintu socdaalka ku marayeen ayaa ka warramay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi iyadoo deegaanka Biyooley iyo sidoo kale deegaanka Tuulo Dhibijo ay halkaasi soo gudbiyeen baahiyaha ka jira deegaankaasi ay u baahan yihiin inay xukuumadda Soomaaliland ay wax kala qabato waxayna sheegeen inay mar walba diyaar u yihiin sida ay ula shaqeyn lahaayeen xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland odayaasha loo soo wareejay Tuuladii Biyooley ku wareejay gobolka Raayay waa ku mahadnaqaynaa wixii hawlaha maanta halkan ka jira iyo wixii ka dhacay waa isku waafaqay maayirka iyo odayaasha beesha أنا ألف قبل بكرة ما نترسلين وحنا كترسلين قبل كم بدو سجين لكن شيخ ما نكترسلين إما قال لك وحنا كشاب الري ونتوسع سن من بربنا الحمد لله رب العالمين وحنا لا نادي أبان هالكا وقوهم والنهي بدك يقولون إن شاء الله هنا دولة داي كو ترسلان حنا أيوة قبضته أنا قلنا نكون رأسنا وحوالك dadka halka fadhiyo reer Biyooley badidoodu sabaga toorto miyiray leey way soo hoydeen waxa soo dumanay halka tumanay maati halka tuman waa dadkii reer miyiga ahay xoolaha haysay way soo hoydeen baahida dadka haysay ka mid tahay waxa ay tuulooyinka ka cabarayeen oo ka mawlahaayeen oo hanalaga gooyarahaayeen halkan sheekh waxay ku qabeen anigu warmahayo deemaan hayn halkan laakiin inta cabati ba ka soconay hadii ay ka soo goyseen oo Berbera ka dhigteen oo saddexdii tuulo maanta Berbera harsanayaan ilaahay baan u mahadnaqaynaa idinkana way idin mahadnaqaynaa waxaan ku codsanaynaa cabashada degmadu tuuladu cabanayso maayar iyo gudoomiye in loo tixgeliyo oo hoos loo eego oo wixii karaankaaga ama karaankiina ay u qaban kartaan aydan waxba kala hadhin taana ku aan warbixinteeda geynayay waxay cabashada inay ka sii mid ahaanin degmada Sheekh maamulkii waa lagu geynay waa kuwa halka fadhiya Biyooley baahiyaadkii aan ugu geynay anigu shakhsi ahaantay waxaan qabaa tii aad nafarteen inay fushay warbixinteedina halkii aad noo farteen aanu geynay horta annagu libin baanu sidanaa maanta hadaan golay deegaanka naayo tuula noo soo kordhay deegaan kale noo soo kordhay beeraley baan noo soo kordhay dadaanu ku xisaabtami karnaa noo soo kordhay waxaan wax kasto aniga ii soo kordhaa waxaan helayaa inaan dadaalkeedii iyo wanaageedii anigu aan soo celiyo ودين راعي waxa weeyaan dadku cid ay doortaan ay siyaasadda u doortaan waxtarka iyo waxqabadkana iyaga ku maqal siyaasadda iyaga ku maqal halka uu idin sheegay xildhibaanku ama Allah aad ilaahay xisbiga kulmiye ayuu maanta isku ognahay degmiye heer gobolba nooga qabta waxa qaban karaysaan wixii dhow iyo wixii dheerba nooga qabta oo gurmada oo inooga qabtay loo degmada inoo idin kama lihiin nabay iyo gobolkeena inaga ma lihiin haddii ay dawladda hoose tahay haddii ay dawladda dhexe tahay iyo haddii ay tahay golaha deegaanka dhammaan intuba haddii ay Tuulo Dhibijo ay noogu timi taas horta ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inta waxaan raacinayaa anagu waxa baan u arkaa itiraafkii aanu doonaynay maanta anaga itiraaf Soomaaliland la itiraafay baan nooga maduro maadaama intaas noo timi mas'uulimanaynin aan la indhaynaynin de waa aragtaan iyadaba inaan baahideedu yarayn idinku waa arkaysan mar haddaan intaa idinka warramay
wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee berbera ayaa halkaasi dadka kala hadlay ugu horreynna gudoomiyaha golaha deegaanka cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaa waxa uu ballan qaaday in ay wax kala qaban doonaan ilaa ku dhawaad 10 cabasho ay soo jeedeen dadka ku dhaqan deegaankaasi oo baahan in wax laga qabto oo maanta markaa degmadii berbera ka tirsan sida hore loo sheegay taasi micno weyn bay inoo sheegaysaa waxa weeyaan markii hore inkastoo ay degmada sheekh iyo degmada berbera yihiin laba degmo oo walaalo ah dee laba degmo isku itaala runtii maaha waxaana laga yaabaa hadday berbera toos uga tirsanaan lahaydeen in horumarku kan ka duwanaan lahaa halkan danta guud waxaan arkaya 10 qodob oo u dhibteen gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada berbera waxyaalo badan oo aan qaban kareyna ayaa ku jira dib baan isugu noqonaynaa qodobada idinku waaweyn iminka reer biyoolay iyo deegaanku ka cabanaysanna waxaan filayaa inay 10 ka qodob ku soo ururaya waqtiga xaadirka ah waa ka dadaalaynaa laakiin iminka wixii ka bilaabma insha Allah taala waxa ku biiri doontaan wax kastaba ha noqdee wax qabad joogta oo degmada la jaan qaadaan kulli halkan telefishinada yaalo daawataanno mashaariic ma naga xadhignaadna way dhamaadaan insha Allah kuwaas ma kan noqon doontaan 10 ka qodob baan ku jirin qodobkaasana ku daraya waa halkay u dhimatay weey waa mucaamad quraan weey haddaan ilmuhu aanu quraanka baranin iskuulkan waxba ka gudbimaayo hadday jirto macalinka ama labada macalin quraanka dhigaya anaga la wareeganaa gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed ayaa isaguna si weyn u soo dhaweeyay baahiyaha kala duwan iyo dareenkooda ay ka hadleen dadkaasi golo deegaan ay wax ka soo noqdaan Soomaaliland waxa la arkaa kuwa berbera marka waxa loo baahan yahay in golahiina deegaanka ay xildhibaanadiina inkuna aad iskarab taagtaano halkay bidaan inay guul ka helayaan ama wax ka helayaan ama mustaqbalkooda ugu jiro inkuna inaad gacan ku siisaan mas'uuliyiintaasi waxaa ka hor halkaasi iyaguna hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen xukuumadda dawladda hoose ee berbera sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Salaadiin Cuqaal waxgarad ka soo jeeda deegaankaasi oo dhamaantoodba sheegay in xaalado kala duwan oo la xiriira baahiyaha asaasiga ah ee bulshada ay ka jiraan deegaankaasi oo loo baahan yahay in xukuumadda Soomaaliland ay wax ka qabato socdaalkan mas'uuliyiintu ay ku marayeen deegaanadaasi ayaa waxa sidoo kale lagu muujinayay dareenka ay bulshadu ay u qabaan taageerada xisbiga talada dalka haya kulmiye iyagoo sidoo kale halkaasi soo bandhigay taageero baaxad leh oo ay ku muujinayeen dareenkooda intii aan mas'uuliyiintu aan socdaalka ku tagay deegaanada Biyool iyo Burcakibir waxay sidoo kalena ay gaari u shaqeyn doona xarunta caafimaadka ee magaalada Laalays ay ku wareejiyeen dadka ku dhaqan deegaankaasi xildhibaan Maxamed Cali oo isagoo laga soo doortay deegaankaasi ayaa waxa uu dadkaasi ku wareejiyay gaarigan oo uu sheegay inuu u shaqeyn doono hooyada iyo dhallaanka jilicsan Muxtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera ayaa maanta kormeer ku soo maray deegaanada Laalays iyo sidoo kale deegaanka Biyooley iyo deegaanka Tuula Dhibijo iyagoo halkaasina si weyn u soo dhaweeyay dadka ku dhaqan deegaanadaasi mas'uuliyiinta ayaa waxay dadkaasi ay kala hadleen munaasabado waaweyn oo ay ku soo dhaweynayeen dadka ku dhaqan deegaankaasi isla halkaasina la isku xog wareysanayay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka dadka madax dhaqameedka Salaadiinta iyo sidoo kale hay'adaha deegaanadaasi ay mas'uuliyiintu socdaalka ku marayeen ayaa ka warramay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi iyadoo deegaanka Biyooley iyo sidoo kale deegaanka Tuula Dhibijo ay halkaasi soo gudbiyeen baahiyaha ka jira deegaankaasi ay u baahan yihiin inay xukuumadda Soomaaliland ay wax kala qabato waxayna sheegeen in ay mar walba diyaar u yihiin sida ay ula shaqeyn lahaayeen xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland odayaasha loo soo wareejin tuuladii Biyooley ku wareejay gobolka Raayay waa ku mahadnaqaynaa wixii hawlaha maanta halkan ka jira iyo wixii ka dhacay waa isku waafaqay maayirka iyo odayaasha beesha meel foga walba kama naan tirsaneen waxaanu ka tirsaneen gobolka un baan oo sageeyay laakiin sheekh baanu ka tirsanay imika laakiin waxaanu ku soo biiray oo toos oo hoosnimi berbera alxamdulillah rabbil caalamiin waxaanu leenahay iyo aad baan halkaa ugu hanweynahay dadkayga waxaanu jecelahay inay dawladda ay ku tiirsanaadaan waxna ay u qabato annaguna aanu ku raacsanaano waxweynka dadka halkaa fadhiya oo reer Biyooley badidoodu sabaga koorto miyay leeyahay way soo hoydeen waxa soo dumanay halkaa tumanay maati halkaa tuman waa dadkii reer miyiga ahaa xoolaha haysay way soo hoydeen baahida dadka haysay ka mid tahay waxa ay tuulooyinkani ka cabanayeen oo ka mawlahaayeen oo hanalaga gooyarahaayeen halkan sheekh
waxay ku qabeen anigu warumhayo demaan ahayn halkan laakiin intaa cabati baa ka soconayay haddii aad ka soo goyseen oo berbera ka dhigteen oo saddexdii tuulo maanta berbera harsanayaan ilaahay baanu u mahadnaqaynaa idinkana waa idin mahadnaqaynaa waxaanu ka codsanaynaa cabashada degmadu ee tuuladu cabanayso maayar iyo guddoomiye in loo tixgeliyo oo hoos loo eego oo wixii karaankaaga ama karaankiinna ee aa u qaban kartaan aydaan waxba kala hadhin taana kuwaanu warbixinteeda geynaynay waxay ahayd cabashada inaanay ka sii mid ahaanin degmada sheekh maamulkii waanu u geynay waa kuwa halka fadhiya biyoley baahiyaadkii aanu u geynay anigu shakhsi ahaantay waxaan qabaa tii aad na farteen inay fushay warbixinteediina halkii aad noo farteen aanu geynay horta annagu libin baanu sidanaa maanta haddaanu golihii deegaanka nahayo tuulaa noo soo kordhay deegaan kalaa noo soo kordhay beeraley baa noo soo kordhay dadaannu ku xisaabtami karnaa noo soo kordhay waxa weeyaan wax kastoo aniga ii soo kordhaa waxaan helayaa inaan dadaalkeedii iyo wanaaggeedii aniguna aan soo celiyo wadiin raacinaya waxa weeyaan dadku cidda ay doortaan ay siyaasadda u doortaan waxtarka iyo waxqabadkana iyagaa ku maqan siyaasaddana iyagaa ku maqan halka uu idiin sheegay xildhibaanku ama alla idin leeyahay xisbigaa kulmiye ayaynu maanta isku ognahay degmiye heer gobolba nooga qabta waxaa qaban karaysaan wixii dhow iyo wixii dheerba nooga qabta oo u gurmada oo inooga qabta ilaa waa degmada inoo idin kama lihiin nabe iyo gobolkeenu inagama lihiin haddii ay dawladda hoose tahay haddii ay dawladda dhexe tahay iyo haddii ay tahay golaha deegaanka dhammaan intuba haddii ay tuulo dhibiijo ay noogu timi taas horta ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa intaa waxaan raacinayaa annagu waxaa baan u arkaa ictiraafkii aanu doonaynay maanta annaga ictiraaf somalilan la ictiraafay baa noogama duga maadaama intaasi noo timi aan mas-uulimanaynin ee aan la indhaindhaynaynin dee waa aragtaan iyadaba inaan baahideedu yarayn idinkuba waa arkaysaan mar haddaan intaa idinka warramay waftigan uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee berbera ayaa halkaasi dadka kala hadlay ugu horreynna gudoomiyaha golaha deegaanka cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaa waxa uu ballan qaaday in ay wax kala qaban doonaan ilaa ku dhowaad 10 cabasho ay soo jeedeen dadka ku dhaqan deegaankaasi oo baahan in wax laga qabto oo maanta markaa degmadii berbera ka tirsan sida hore loo sheegay taasi micno weyn bay inoo sheegaysaa waxa weeyaan markii hore inkastoo ay degmada sheekh iyo degmada berbera yihiin laba degmo oo walaalo ah dee laba degmo isku itaala runtii maaha waxaana laga yaabaa haddaa berbera toos uga tirsanaan lahaydeen in hore markuu kan ka duwanaan lahaa halkan danta guud waxaan arkaya 10 qodob oo u dhibteen gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada berbera waxyaalo badan oo aanu qaban karayna ayaa ku jira dib baan isugu noqonaynaa qodobada idinku waaweyn iminka reer biyooley iyo deegaanku ka cabanaysan waxa filayaa inay 10 ka qodob ku soo ururayaan waqtiga xaadirka ah waa ka dadaalaynaa laakiin iminka wixii ka bilaabma insha Allah taala waxa ku biiri doontaan wax kastaba ha noqdee wax qabad joogta oo degmada la jaan qaadaan kulliga inta telefishinada yaalo waa daawataanuno mashaariic ma naga xadhignaadina way dhamaadaan insha Allah kuwaas ma kan noqon doontaan 10 qodob baan ku jirin qodobkaasana ku daraya waa halkay u dhimatay weey waa malcaamad quraan weey haddaan ilmuhu aanu quraanka baranin iskuulkan waxba ka gudbimaayo hadday jirto wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaraar ka soo saartay jaadka laga keeno wadankaasi Yemen iyagoo sheegay inuu halis ku yahay caafimaadka bulshada. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in dalka laga joojiyay imaatinka jaadka laga keeno dalka Yemen kaasi oo maalmihii u dambeeyay laga soo daabulayay dalka aynu xuduudka biyaha wadaagno ee Yemen. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye oo uu heliyo agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaraddaasi ayaa hadal si wada jir ah u siiyeen warbaahinta waxa ay ku sheegeen in dalka Yemen uu ka jiro xanuunka halista ah ee daacuunka kaasi oo kumanaan ruux ku dilay bilihii u dambeeyay dalkaasi sidaa daraadeedna ay go'aan ku gaadheen in dalka laga joojiyo soo galitaanka jaadkaasi khataraha caafimaad ku wareegsan yihiin. ugu horreyn agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay. wasaaradda caafimaadku waxa ay halkan ka shaacinaysaa in ay jiraan xanuuno
faafa xanuunada waxa ka mid ah xanuunka loo yaqaan cholera muddadan u dambeysay waxa soo soconayay qaad ka yimaada dalka Yemen kaasoo uu ka jiro xanuunka loo yaqaan daacunka ama cholera dabadeed waxa weeyaan xanuunkaas waa xanuun halis ah soona faafi kara kuna soo faafi kara haddaba waxa ay wasaaradda caafimaadku markay dhinacyo badan ka eegtay ay tixraacday xaaladda ka jirta waddanka ay eegtay xaaladda aynu galayno ee doorasho aynu ku jirna eegtay isku socodka dadka iyo populationku sida u soconaya la wada eego waxa weeyaan xaaladdaasi waxaan u aragnay wasaaradda caafimaad ahaan inay tahay xaalad khatar ah dabadeedna waxa weeyaan arrintaasi waxaanu soo garanay aanu dhammaystirnay in la joojiyo qaadka ka imanaya Yemen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa isaguna fariin u diray bulshada cunto iyo kuwa ka ganacsada qaadka laga keeno dalka Yemen kaasi oo ay hareeyeen khatar caafimaad oo ugu horeeyo xanuunka daacunka oo dalkaasi ka jiray muddooyinkii u dambeeyay waxa jira sahaminta aanu sahaminay waxaan u sheeko hayno ugu badan iminka dhulkan xuduud ka leenahay ee waddanka Yemen aynu jaarkanahay badda yar inoo dhaxayso inuu yahay xanuun kalooraha uu ka jiro oo noocan waliba adduunka hore looga aray uu ka jiro oo dhimashadu ku badan tahay marka qaadka Yemen laga keenayo la yiraahdo ama magacu doonaba hal ahaadee Yemen laga keenayo waxa weeye wasaaraddu way ka digaysaa inaan la keenin oo bulshada caafimaadkeedu halis badan u leeyahay annagoo aan qaadadka waddanka yimaada iyo khudaarta timaada midna si gooni ah una xayeysiin midna celinaynin laakiin waxaa jirta halis caafimaad halista caafimaadna waxa weeye annaga ummadda ugu bulshada ugu mas'uula qof baa laga yaabaa inuu ka faa'iido laakiin inta aynu ku seegano ayaa ka badan ka keenaya iyo ka cunaya iyo ka soo dhoofinaya iyo ka cashuuraya inta waxaan leenahay anigoo wasaaradda maaliyadda warqad u gudbin doona inaan goobaha kastamada lagu cashuuri karin qaadkaas uu yahay halistiisa leeyahay in laga digtoonaado maciishooyinka qoyan ee ka imanaya waddanka Yemen waa fariin caafimaad muwaadin haddaad tahay kii cunayay haddaad tahay kii soo qaadayay haddaad tahay kii keenayay waa fariin caafimaadna kuu soo diray oo dani kugu jirto carruurtaada dani ugu jirto qoyskaaga dani ugu jirto qarankana dani ugu jirto aad baa mahadsantahay dalka Yemen ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa hareeyay dagaallo iyo qasas siyaasadeed kuwaasi oo jahawareer ku riday bulshada ku nool dalkaasi Yemen waxaana farabaas ku hayay xanuunka khatarta badan ee daacunka kaasi oo ka dilay kumanaan ruux agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka furay kulan dib loogu qiimeynayo waxyaalihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka sanadkan sii dhamaanaya ee 2017 kulankan ayaa waxa lagu qiimeynayay waxyaalaha wasaaradda caafimaadka u qabsoomay sanadkan sii galbanaya sidoo kalena waxa qayb ka ahaa qorshaha wasaaradda ee sanadda 2018 ee soo socota ka qaybgalayaasha shirkan oo ay qayb ka ahaayeen hay'adaha la shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo inta badan mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ayaa socon doona muddo 2 cisho ugu horeyn waxa halkaasi ka hadashay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Faysal Xaaji Axmed Ibraahim iyadoo oo faahfaahisay ujeedooyinka loo qabtay kulankan sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay hay'adda UNICEF ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin oo degmadiisu qayb laxaad la ka qaadato kobcinta adeegyada caafimaad ee aasaasiga ah ayaa isaguna halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa si rasmi ah kulankan u furay isagoo oo kelmado dardaaranna u jeediyay ka soo qaybgalayaashii shirka runtii waxaan ka marakacay inuu ahaa sanadkan soo dhaafnay sanad aad u adag oo hawlo badan soo wada qabanay inagoo wasaaradda caafimaadka kaalashana soo hay'adaha sida UNICEF iyo kuwa kale nala shaqeeya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadii nala soo qabteen review-gan aynu eegayno waxaan doonayaa inuu ka duwanaado kuwii hore aynu eegi jiray inagu keligeen inaynu isxisaabino maaha waxaan doonayaa inay bulshadu reer Somaliland aynu u shaqeynaa inay xisaabiso waxaan doonayaa inay taas aan hoos ka xariiqno waxa soo socdanayna oo ka baranna wixii aynu markii hore soo maray hawlahan soo maray maxaa inala gudboon oo qaban doonaa shaqooyinkan waddanka loo qabtay wasaaradda caafimaadka ku saabsan waxa iska leh wasaaradda caafimaadka dadkan kale in lala shaqeeyana waa adeegayaasha wasaaradda caafimaadka la shaqeynayay ama technical u ahaa ee support gareynayay anigoo aad uga mahadcelinaya sida dhigaha nugul ee ay nooga shaqeeyeen waqtigii adkaa ee la soo dhaafay imikana waxaan leeyahay shaqo cusub inuu gelanaa electionkuna oo ka soo socda hase yeeshee electionkana inuu gelanaa shaqaduna way soconaysaa serviceku sidiisii buu soconayaa waddanka securitygiisuna waxa weeye waa secure meel qof kasta meel kasta waa la tegi karaya marka shaqooyinkanu wadnay inaanan waqti uga dhigin oo life savingkeenu sidaynu nafta u badbaadinayna aynu halkii uga sii wadno
iminkana waxaan shirku inoo furan yahay hawl wanaagsan baan idin rajaynayaa labada maalmood maanta iyo berriba inaa hawl wanaagsan guda gashaan oo lagaga meedho dhaliyo mustaqbalka soo socda aad u baahsantiin wararka kale daawadayaal idii hayna waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dadweynaha ciyaaraha xiiseeya ee ka soo qayb galay daawashada munaasabadda ciyaartan lagu xusayay sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay aasaaska garoonka kubadda cagta ee xaafadda biibsiga ayaa ka waramay qiimaha ciyaaruhu ay leeyihiin iyo kaalinta garoonkan biibsigu ka qaatay dhiirigelinta dhallinyarada ciyaaraha kubadda cagta dheesha maxamed maxamuud diridhabo oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii xulkii gobolka waqooyi galbeed xilligii dowladii maxamed siyaad barre ee 80maadkii iyo Saleebaan Xasan Daahir oo ciyaartaasi ciyaarayay ayaa ka faalooday ciyaartan loogu dabaaldegayo garoonka kubadda cagta ee biibsiga salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin amma bacd marka hore waxaan salaamayaa bahweynta dhalinyarada ciyaaraha jecel ee waxa weeye taageerayaasha garoonka buuxa ayaan salaamayaa marka xiga ciyaartan waa ciyaar munaasabadeed waana ciyaartii sanad guuradii labaad ee garoonkan asaaska ama furitaankiisii garoonkan biibsiga aan ilaaha garoonkan waxa weeye maxamed saalax yani loogu magac daray garoon ciyaartaas waxa ku wada ciyaaraya labada kooxood oo odayaala oo qaybaha habeenadii ku ciyaara ama bulshooyinka ku ciyaarta garoonka ah marka labadan kooxood baan nasiib wanaag maamulku u garteen in ciyaartan ciyaaraan ciyaartiina saasay ku bilaabantay insha Allah waana ciyaar waxa weeye kulli dhaxmar doonta labada kooxood ciyaar saxibtinimo waxaynu halkan u joognaa ciyaarta munaasabadda sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay furitaankii garoonkan biibsiga ciyaartaasoo labada kooxood ee odayaasha cuslaaday dhex maraysa dhalinyarada cuslaatay aan idhaahdee odayaal raalliga ahada ciyaartan ayaa waxaa soo qaban qaabiyo ugu talagalay maamulka garoonka Nuuro Dhalaax iyadoo ay ugu tala gashay in ay odayaashaas ciyaaraan annagoo anigu gaar ahaan waxaan ahay ciyaartoydii lagu furay garoonka markii la furayay 2 sano ka hor maantoo kale 2015kii marka waxaan leeyahay ciyaar wanaagsan odayaasha macallimiinta badan baa nala ciyaaraya ciyaar wanaagsan salaam alaykum waxana ay ku bogaadiyeen Nuuro Xuseen Dhalaax oo agaasimka munaasabadan iyo aasaaska garoonkan lahayd ciyaaryahan Yaasiin Aabayare iyo Cabdilaahi Maxamed Koosaar Abujaas ayaa iyaguna ka waramay natiijada ciyaartaasi ay ku dhamaatay isla markaana halkaasi isku bogaadiyay iyo qoladan soo agaasinta xafladda runtii waxay ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan ayaanay ka soo qayb galeen dad waaweyn oo magac ku lahaa kubadda cagta waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciddii soo agaasimtay kulankan oo ahaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay garoonkan Biibsi Stadium oo runtii ay hayaan dad mudakara oo aqoon u leh xirfadda kubadda iyo faa'iidada ay leedahay jimicsigu marka runtii waxay ciyaar aad u qurux badan guushuna annaga ayayna raacday waana ku faraxsanahay maadaama ay sugu yimaadeen ciyaartooy kamid ah ciyaartooygii hore ee kubadda cagta ciyaar jiray waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama maanta laga badiyay waanu hambalyeynaa waayo waxa ciyaarayay la ciyaarayay mudane maxamed diridhaba oo hadii aanu ka badin lahayn la oran lahaa odaygii baa laga badiyay marka waanu hambalyeynaa maadaama annaga labada qaadanana tafudud gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta mudane maxamed amiin cabdi ayaa bogaadiyay aasaasaha garoonkan kubadda cagta ee biibsiga Nuuro Xuseen Dhalaax labada kooxood ee ku tartamaya koobkan munaasabadda garoonkan loogu dabaaldegayay waxaana uu ka waramay qiimaha ciyaaruhu ay leeyihiin iyo qorshaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland waxa weeye anfac uu leeyahay garoonkani dhammaan waxaan u malay waa laga wada dheregsan yahay iyo bulshada sidoo anfacay iyo dhalinyarta iyo ciyaartooygii hore ee faxbalkii ka fariistaba oo iyagu laftigoodu aad uga faa'iideystay waxa weeyaan tartankan sanad guuradii koobaad waxa loo qabtay ciyaartooyga daada yar ee fudud sanadkan faxbalkii waxa lagu xusay ciyaartooygii hore waxa ka muuqday meeshan ciyaartooy badan oo maanta hadda tababarayaala iyo rag badan oo bulshada magac ku leh oo professor waxa weeyaan faxbalkii dhamaantood oo ku hambalyeynaya garoomada noocan ah ee faxbalkii loo soo kordhay ونفعات كل اللي تلقوا دماغنا وكذا درسنا هاي وحوي هدي دراسة السبعية مكا عارف ما لهان يبول شاهان با وحبذا بينوسو كليين كيستكله waxaa halkaasi lagaga dhawaaqay natiijada abaalmarinaha la kala guddoonsiiyay labada kooxood iyo ciyaaryahanada kale marka maanta waxa soo gabagabay koobkaas aan ugu talagalnay xuska waxaana ku guuleystay kooxda Lions waxaan bixin doonaa jaysado 3 kooxood
aanu siin doono waxa kamid ah goolkii ugu horeeyay garoonka laga dhaliyay waxa dhaliyay Saleebaan oo inoo jooga ugu badan garoonka ka dhaliyay Kamaal waxa weyn macallinkii macallimiinta odaygii odayaasha diriraba kooxda tuug waxay leedahay koobka ay leedahay koobtankooda u soo qaadi doona koobkii kooxdii kale Rashid intaasi daawadayaal waxaan ku soo afmeerayaa war waxaanu dalka gudihiisa iyo dibadiisa baanu idinka haynay warkan iyo wararka oo faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan baahimaha iyaga dambe ee soo socda intase ka horeysa aniga iyo bahweyntii kale igala qayb qaadatay warku waxaan idinku dhaafaynaa aragtimo qaldambe goor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu